cabdikariin xuseen guuleed ayaa ku dhashay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan sanadka markuu ahaa 1967 isagoona waxbarashada aasaasiga ku soo dhameystay magaaladaasi wuxuuna waxbarashada heerka sare uu ku dhameystay dalka Yemen isagoo kuliyadda maamulka imaareynta ku bartay jaamacadda culuumta iyo tiknoolajiyadda Yemen University of Science and Technology wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa wuxuu cabdikariin ka soo shaqeeyay dhinaca waxbarashada isagoona si gaar ah ula soo shaqeeyay wakaaladda muslimiinta Afrika oo mashaariic waxbarasho samafal iyo daryeelka agoonta ka fulisay dalka Soomaaliya sidoo kale kaalin weyn ayuu ka qaatay furitaanka goobo waxbarasho oo laga hirgeliyay inta badan gobolada Soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed wuxuu soo noqday madaxii gargaarka wakaaladda muslimiinta Afrika xilligii abaaruhu ku dhufteen qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya sida sanadkii 1992 daadadkii iyo fatahaadihii ay sameeyeen wabiyada Soomaaliya mara sanadkii 1997 cabdikariin wuxuu soo noqday madaxii dalladda waxbarashada ee FBNS waa dalladda ugu weyn ee dalladaha waxbarasho ee ka jira gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxa kale uu wax ka soo aasaasay jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho guuleed waxa lagu xasuustaa inuu gacan ka geystay dhismaha masaajidda iyo goobo wax lagu baro laguna xanaaneeyo caruurta agoonta ah kuwa oo aynan hooyooyinkoodii awoodin inay ka bixiyaan lacagaha waxbarashada aasaasiga sanadkii 2011 ayaa wuxuu noqday madaxa hay'adda gargaarka ee Direct Aid oo howlo bini'aadanimo ka fulisay gobolada koonfurta iyo bartamaha xilli abaaro dad badan ku dhinteen ay ka jireen isla sanadkii 2011 ayuu ka mid ahaa xubnihii ugu muhiimsanaa ee magaalada Muqdisho ku aasaasay xisbiga nabadda iyo horumarka PDP oo xilliga uu gudoomiye ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii December ee sanadkii 2012 ayuu cabdikariin xuseen guuleed noqday wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya xukuumaddii oo ra'iisul wasaaraha ka ahaa Cabdi Faarax Shirdoon Saacid 17 January ee sanadkii 2014 ayaa wuxuu cabdikariin noqday wasiirkii amniga ee xukuumaddii Dr. Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed xilkaasi ayuu iska casilay 24 bishii May isla sanadkaasi markii dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho cabdikariin wuxuu markaasi sheegay isaga oo qiimeynaya xaalka dalka uu ku sugan yahay inuu xilkaasi iska casilay talaabada uu isku casilay guuleed ayaa waxa kale la tilmaamaa inay ka dhalatay culeysyo siyaasadeed ka haystay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed iyo guddiga amniga ee baarlamaanka dad badan ayaa aaminsan in iscasilaadii guuleed inaanay waxba ka bedelin amni daradii ka jirtay magaalada Muqdisho waxaana sidii caadada ahayd Muqdisho ka sii socotay weerarada ay ka geysanayaan dhinacyada ka soo horjeeda jiritaanka dawladda federaalka Soomaaliya guuleed waxa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay xubnaha sarsare ee ururka Dam Jadiid oo ay isku bahaysteen aqoon-yahano Soomaaliyeed hadafkoodan uu ahaa inay mar qabtaan hoggaanka dalka balse markii dambe noqday kuwo ku kala qaybsan siyaasadda dalka ugu dambeyn guuleed waxa 4 bishan magaalada Cadaado loogu doorto inuu noqdo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug oo ka dhisan gobolada Galgaduud iyo Mudug guuleed waxa xilkaasi kula tartamaysay ilaa 5 musharax oo xilkaasi isu soo taagay warar xaqiiqo ah oo la isku haleyn karo akala soco www.dacda.com